wararkeena waxa ugu dooron dawladda Eritrea ayaa waxay bilowday dhoolatus ciidan oo aan inaba caadi ahayn. haddaba xaguu ku wajahan yahay dhoolatuskan iyo ula leedahay Eritrea. dhanka kale Tigreega ayaa wararka in ay qorigoodii cabaysteen oo Tigreegu ay isu diyaariyeen colaad hor leh. sidoo kale waqooyiga Ethiopia deegaanka Amxaarada waxaa la socoteen in dagaalo ay ka socdeen muddo laga soo bilaabo 2023kii bishii August ilaa bishan October maanta gabagabada ah 2024 si toos ah waxaa halka uga socda dagaalo aan waxba la isula hadhin oo Ethiopia gabi ahaanba dhulka la galay. soo dhawaada dhamaantiin meel ka soo joogtaan oo ana la shirkii aan caadiga ahayn ee golaha dhexe saada socotaan dhulgariir ayuu ku noqday Ethiopia iyo intay la socotaba. shirkaas oo weli aan dhicin laakiin sansaantii uu ku qabsoomi lahaa ay si xawli u socoto. soo dhawaada muuqaalkana gaarsiiya bulshada dhamaan gaarsiiya bulshada qadar yar ayaan ku jireynaa waqtiga ayaa aad iyo aad nooga kooban. waayahay وعليكم السلام ورحمة الله. soo dhawaada idilhaan waan islaamaya dhamaantiin khiyaarta sharafta leh. waxaad arkaysaan in geeska Afrika uu isla holcayo nabad. geeska Afrika bariga Afrika nabad way ka dhamaatay. Ethiopia dulmi bay ku dhisnayd, qoomiyada ka koobnayd, aan shaqo isku lahayn inta badan la haystay. qoomiyadihii la haystay iyo kuwii wax haystay wixii oo dhan waa la isla burburay. kuwii wax gumaysanayay oo Amxaariya Tigreega iyagii baa jabhad ka ah. kuwii wax gumaysanayay kuwii la gumaysanayay baa meesha haysta oo laga cabanaya qayb kamid ah. waa qoomiyada Oromada hadda talada haysa xisbiga OBD-ooda. Axmaaro iyo Tigreeg waa cabasho, waana nimankii Ethiopia aabaheed iyo hooyadeed ahaa ee lahaa waxan maartay Ethiopia leeyda. haddaba xabashi iyo Tigreeg heshiis waxay ku yihiin iyagoo col ah oo dhul isku haysta oo mabaadi badan isku haysta oo aan is xukumi karayn. haddana waxay isku raacsan yihiin maanta qoladan ay gumaysan jireen ee talada haysa intayna ku xoogaysanayna meesha ka tuuraan. taas waa qodob. dagaalkan marka gobolka Amxaarada ka socda Tigreega waxaa la filayay inay dhabar jabiyaan. Tigreeg waxay ku leeyahay Tigreegu xabashida idinma dhabar jabinayna idinma soo soconee hawshiina si caadi ah isaga wata. shaqo fiican baad haysaa. wixii dhaxdeena yaal markaa ka xaaltamayna. Eritrea oo Tigreeg dhulkiisa hadda deegaankiisa ilaa 50 goobood ku sugan. Tigreega Eritrea waxay ku tiri wax haba yaraatee culays oo idinku haynaay ma jirtee. Tigreeg hawshaad inay iska wado. dhabar jabin damba ma jirtee waa iska caadi haddaad dhaqaaqdaan. waaba idin kaalmaynaynaa baa meesha taag. dhanka kale wada hadal ayaa dhaxmaray Tigreega iyo Eritrea oo isku Tigreeyan la isku yiraahdo oo isku dad ah isku luqad ah. wada hadal baa dhaxmaray. heerka uu yahay way soo bixi doontaa. haddaba hawlahaas oo socda oo Tigreegana laga dareemayo dhaqdhaqaaq inuu ka socdo gobolkooda waxaa dhacay saad la socotaan Korneyl Abiy Ahmed wuxuu ku dhex yeeshay Tigreega ninkii la oran jiray Getachew Reda ee afayeenka TPLF ahaan jiray oo qoomiyad yar oo gobolka Raaya la yiraahdo Tigreega degan oo asalahan la yiraahdo waa Oromo uu ka soo jeedaa. ninka kor bay u qaadeen way gardaadiyeen ilaa TPLF markay joogtay Malazana wasiirka warfaafintu ahaan jiray iyaga wax soo baray. haddana markii wada hadaladii Pretoria soo afayeen ahaa iyaga isaga yihiin hogaami si marka ay maartay isaga hormariyaan yoolbaar buu iska ahaa dhisabayn uu tagtago madaxweynaha ku meel gaarka ee gobolka Tigreega ayuu ahaa. ninkii isaga ahaa Abiy Ahmed baa gacanta ku dhigay. Abiy marka ilaa 4 Tigreeg 4 nin oo Tigreeg oo saraakiil ahaa iyo wuxuu gacanta ku dhigay ninkii la yiraahdo Getachew Reda oo la soo taagan. dawladda federaalku waxay rabtaa Tigreega yeela iskaashadaan Oromadu
oo ay maartay saami qaybsi samaystaan oo meeshan ay wada maamulaan marka haddegdegina TPLF hadaa tihiin ka warsuga dowladda federaalka awood qaybsi bay Tigreega u ogoshahay kada wa kada ninka la Debrecen iyo kooxda mayalka adaga Tigreega ee ciidamada haysta kor bay u boodeen bug waanu soo noqonaynaa qodobkan waalaikum salaam waraxmatullah barnaamijka si sheer garaya waa sida yarban ku jiraya boogta waxaan rabaa macluumaadyada cusub oo dhan dadkeena la wadaagno barnaamijyadan waa kuwa qadiyadeed maaha kuwa dacaayada xaqiiqada ku qotamaan Ethiopia warka ka sheegayna waa war waxa weeyaan waaga ka cad dharaara weeye oo si dharaarta u cad waxaan rabnaa marka dadkeena Soomaaliyeed inuu gaaro meesha Ethiopia marayso oo ah maanta meeshii ugu liidatay Soomaalidana bishaaradeeda waaye Eritrea marka magaalada Asmara si gaariga aad arkaysaan shaashada saaran ee ciidanku saaran yahay baabuurta taraagada ee waaweyn yaa waxaa lagu daabulayaa kumanaan ciidamada Eritrea marka magaalooyinka Eritrea dhaxdoodii bay ku dhex marayaan iyagoo hoonka garaacaya muuqaalka waa soo gelin doonaa goordhow waan haynaa isagoo video marka ujeedka lama garanayo waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu riyadii hooyadii amxaara cutay waata hooyadii waayahay marka xaaladdu waxay maraysaa meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa xaggeena xagga gumaysiga Ethiopia waxa weeye godbu ka dhacay Abiy Ahmed talaabo kasta uu qaado Ethiopia wuxuu ku situurayaa haadaan talaabo kasta uu qaadana Soomaalida uu ka sii cadhaysiinaya uu sii kicinaya marka labadaasba way fiican yihiin Soomaalida in isku hagaagi weyday nin isku hagaajiya waan u baahnay Ethiopiadan Soomaalida ay muddada ay isor taagnaayeen in iyadana nin haadaan ka tuura Soomaalidu waa u baahnay marka xaaladdu horta waxay maraysaa halkaas ay maraysaa talaabo ka soo qaado Korneyl Abiy Ahmed Soomaalida uu ku xadgudbaya talaabo ka soo qaado Ethiopia dawladnimadeeda wuu sii duminaya marka ninkaas dhan marka laga fiiriyo teelku shaqo haya oo nin halgaba dacwo ka halgabaya waa isla marka xaaladdu halkaas ay maraysaa waan soo noqonaya waxaan u galeynaa marka Eritrea dhaqdhaqaaqa ciidan bay bilowday si la og yahay safaaradeedii Addis Ababa marba intay ka qaateen shaqaalahoodii hadday ku soo celiyeen maalin dhaweyd iyo waliba rinjiyeystay sana loo sheegay dadka kale safaaradda Ethiopia Eritrea wali waa shaqeynaysaa waa jirtaa Eritrea waxay ka soo caarisay shirkadda Ethiopian Airlines oo $3 milyan bay ku leedahay shacabka Eritrea yay ka dhacday oo macnaha alaabooyinkii Ethiopian Airlines waa aragteen aniga lafteeda idin hadlaya boorso dhan baa iga luntay Addis Ababa oo aan intaan jigjiga tagnay aan nag lay maartay loo dad badan oo Soomaaliya la soo kale baa uga maartay ay alaabta uga luntaa marka Eritrea waxay cuskatay qodobka diyaaradii waa soo cayrisay waa arrin siyaasadeed laakiin safaaradii labada dhinac way joogaan Eritrea marka Masar madaxweynaheedii baa tagay iyo madaxweynaha Soomaaliya Masar waa xulafo Eritrea marka marti gelisay dowladtus baa ka dhacay 2 toddobaad ka hor Asmara okay Ethiopia marka Abiy Ahmed waxa weeye arrintaas waxay ku noqotay yaani waxba ka qaban karin waxa kale oo socda tadagaala ku shidan Abiy Ahmed xamaara la dagaalamaysa Tigreegi baa qoriga waa cabaysan yahay oromadii baa qayb doorka joogta inagii baa shaafaratay isku jirno xaaladda qiimeynayna marka meesha horta waa la kala xoroobaya Ethiopia isma sahraanayso la iskuma sii hayn karayo inuu yimaado Abiy Ahmed waxa weeye damba Soomaalida ugu jirtay waayo te waxa la isku hayo Ethiopia waxa jirta leeyahay dhaqaale lagu taageeri jiray oo ciidan ahaan loo taageeri jiray wixii baa la waayay marka
reer galbeed ma rabaan Ethiopia inay burburto ma rabaan laakiin ninkan ay diidan yihiin Soomaaliya ninkan meel uma socdo marka wuu la degi marka caawimaad hadii laga gooyay meeshan gaajaysan caydha ee colka ee xoogan loo helo isugu hayo de waxa way meesha way kala sharcanaysaa horta Abiy Ahmed siyaasadiisii xagga reer galbeedka god bay ku dhacday Ethiopia midaysan oo xoog leh oo ciidan leh oo institution leh oo dhisanna iyadana way god bay ku dhacday marka waxaan u galeynaa Soomaalida wala soo noqonayaa Eritrea wada rataan xaalkeeda muuqaalka waan soo dhigi doonaa goordhow waxay ciidamo wado iyo dowlad ka sameynayso tawaaska garanayna Ethiopia dowlad Eritrea sameynaysa dowlad cid ay u sameynayso waa iska cadahay fasiraadu ma baahna Tigraygan dhaqdhaqaaqay sameynayaan isagana waa la garanaya waxay rabaan Tigray xurguftii ninkii kooxdii maamulka ahayd nimanka Tigrayga ahaa si wararku sheegayaan waa dhameeyeen laakiin waxay u socdaan hadday mar dhaxdooda nadiifiyeen say sheegayaan wararkoodu nimankaas iyo Abiy hadduu sii xukunka uu sii joogaba nimanka iyo Abiy isma gafayaan isma seegi doonaan waxay kala calfaan way kala food qaadayaan marka Tigray oo xal u arka say xoguhu sheegayaan kaliya inay Addis Ababa tagaan oo burburiyaan nidaamkan bay ku go'ay karaan danka kale waxay haystaan fursad Mareykankii ay kula socdaan oo loo arka xooga kaliya hadduu maartay xasilin kara Addis Ababa inay yihiin TPLF waa maxaa ma xasilin karto ninkan hadda joogana ma xasilin karo haddii la soo gaadho way waayo hadday faanat ma jabada maxaaradu Addis Ababa oramada iyagu ku dhex dagaalamayaan marka nimanka aan lagu dhex dagaalamaynin waa TPLF oo taangeedeedii wadata marka xaaladdu waxay maraysaa marka nin buka boqol u talisay xaaladdu waxay maraysaa baraka male على نسكم مرة حسنا لوقات نسكم مرة حسنا ودنيات كلام بجرتو اسقب قبسي أنكو جميستو أنكو نوعو أنكو بابو أنكو أدو أنا كله وين ماتي مات النوى اللي بحويه وسوتش هذا نوى اللي بقول يسيبه إلى شنيا أوكي تقرأ مركا ما دام القرية ذا عبايستان Eritrea iyo Tigrayguna ay wada hadleen Eritrea dowlad tusay sameynayso waxaad ogaataan Eritrea wali gobolka Tigrayga ilaa 50 goobood saldhig bay ka joogtaa TPLF way ka cabaadi jirtay waad socotaan way dacweyn jirtay Mareykan iyo TPLF oo Eritrea dacweynaysa maarteen way isla joogaan hadda dagaal haddii TPLF iyo isdagaalaan kooxdan Addis Ababa Eritrea magacamaha ka laaban kama laabanayso iyaga Tigrayga lama kala garanayo way ka dhaxadeeganaysaa ma garatay taas waa iska caadi waxa kale oo jirta meesha axbaarada saraakiishan hagaysa iyo tababaradan iyo saanada yaa siinaya adeegeedu waa iska socdaa iyadu waa iska shaqaysanaysaa waa dawlad waxaan soo degaynaa marka gobolka Amxaarada 2023 August bay horta Amxaar qoriga iyo xabada bilowday rasmiga dagaalkan wuu soo socday dagaalkan wuxuu xoogaystay saada socotaan bishii Abriil ee sanadkan ay ku jiro iyo dagaalka xoogiisu uu bilowday miisaankiisu dagaalkaas wuxuu marayaa gobolka Addis Ababa ay kulaala ee leeyahay Shawa North Shawa waqooyiga gobolka Shawa gobolkan waqooyiga gobolka Oromiya gobolkaas yaa la isla maraya Gocham iyo gobolka Wollo iyo gobolka maartay Shawa waa xuduud bay leeyihiin xaqana cafarta kama foga gobolkeeda marka dagaaladaas
oo amxaaradu saa ay wararku ay macnaha ay soo bandhigayaan ee wararkuna ay xaqiijinayaan ciidamo tababaris ciidamay tababaranaysa amxaaro waxaasoo ciidana amxaaro oo ognahay dhaqaalaheedu dibadda waxay iska ururiyaan mooyeen gudaha inaynan dhaqaale fiican ku haysan meesha dowladaha socda dowladaha meeshan guuraya oo maartay hawlahan wata marka axmaaro cabsida Tigray ka baqaysan inuu dhabar jibiyaan Tigray waxay leeyahay amxaaro hawshaada wado hawl fiican baad haystaa anagu kuma soo socono nimanka iska dhici anaga hanaga cabsan amxaaradu markii hore waxay islaahay Tigray ka dhabarkeeda kaga dhufanaya nimanka colaadda dhaxtaad dhanka kale axmaarada waxaa laga cabsanayaa amxaarada joogta Addis Ababa dhexdeeda way diyaarsan tahay hadday soo dhawaato jabhadoodu magaalada Addis Ababa waxaa ka dhaxay dhulgariir baa kasoo yaa ka dhacay cabsidaasna way jirtaa waayo xoogga amxaaradu Addis Ababa ku dhex jirtaa shacbiyan waxaan la aaminsan yahay inay diyaarsan yihiin oo faana joogto magaalada dagaaladan marka way socdaan gobolka amxaarana waxay sheegtay inayna joojinaynin intay ka qabsanayso Ethiopia oo ay ku soo celinayso systemka iyadu rabto burburkaanu ka badbaadinaynaa bay leedahay ninkana wuxuu ku leeyahay national dialogue baa qabanaya Soomaalida intaan u baahanahay iga keena oromada intaan u baahanahay iga keena Cafar iga keena Tigray waxba kama helayo amxaarana de meelaha ka soo urursanaya dabadhilifkeedii wuxuu rabaa national dialogue waxa la yiraahdaa wada hadal qaran oo kii carto oo kala oo la yiraahdaa Soomaalidu de 4.5 ku isku raacday in xal loo arkay xal xaq ma aha wax xal bali marka isaguna wuxuu ku leeyahay waa in waan isu keenay Ethiopia wixii ku hoos jiray iyo wixii Ethiopian ahaba national dialogue baan u qabtay federaalkan dalowgu ma jirto qoomiga qodobka 39 waan tuuray magacyada deegaanada waxaas oo dhan in la bedelo marka ma soconee baa taala meesha marka hawshan waa socotaa marka hawshu way kulushahay dagaaladana way sii socdaan gobolka axmaarada dagaalka ka socda xogaha aan helayn xajmigiisu intuu leeyahay ninka la yiraahdo Burhan Jula baa daraad yiri taliyaha guud ee ciidanka Ethiopia ninka oramada ah ciidanka Ethiopia wuxuu ka hadlay militarigiisu wuxuu ka hadlay hadda ku magacaaban waxtarkooda yani uu dhaliilay qiimo ahaan way hooseeyaan buuli isagii baa dhaliilaya niman jabhada oo cusub oo hadda dagaalkoodu sanad uun jiro jabhadnimadoodu oo maartay gobolkoodii intii badneed gacanta ku dhigay Addis Ababa waxaan qaltaagaya waa amxaarada waxa kale oo naloo xaqiijiyay oo wargeysay waaweyn ay qoreen xitaa Addis Ababa iyo waaxigeeda dhulka oromada iyo Addis Ababa iyo xataa koonfurta dhulka koonfurta abi qoliyaha reer koonfureedka 80 qowmiyadood ee faraha badan ee tirada badan ee dabuubka la isku yiraahdo ciidan uu ka qortaa Tigray amxaara ma qorto Tigray amxaaro ma qoro Abiy Ahmed waa la fiis uga baqaya uu ku soo jeedsanaya marka xaaf xumba ka socda Addis Ababa waaxigeeda qabqabasho dhalinyarada oromada iyo wixii dhan baa la raafaya qasab baa lagu ciidameynaya halka meesha waxa kaaga cad wax ciidana oo nafle oo haya ma jirto inta isku ilaalinayo ilaa 40,000 ciidamo waxa jirta aarina Addis Ababa ku ilaashado oo isagoo ilaalis koofiyad casta oo hubka ugu fiican u siiyay baa jira laakiin si guud ciidan rasmi ah oo Ethiopia intuu furun galo duuli kara oo moraal haya oo isku qabiila isku qoomiyad isku yaani qadiyad qarana lama hayo axmaaro waa la iska ilaalinaya Tigray waa la iska ilaalinaya waa qoriyaha yar yar ee kaliya dabuubka la yiraahdo yuu ku kalsoon yahay waad faatay Soomaa xaaladan marka halkaas ay maraysaa national dialogue baa la qabtay oo Soomaalida wala odayaal iska ilooba odayaal kun oday oo Soomaali ha geysto
waxba uma soo kordhinayaan waa dadku gacanta ku hayo wey waa dad masaakiina waa dad aan cod lahayn waa dad la soo maartay qasbayo wey okay intaas horta waa gobolka Amxaarada warkoodu waa cad yahay ciidan tababaris iyo dagaal hore socod leh iyo hardankaasi ku jirta xabashi hadal way dhaaftay calaaca lama joogto walow ay ka cabanayaan maalmahan diyaarada iyo waxbay ka cabanayeen oo maartay wixii baa maartay xagee Amxaara teknikadeedii iyo waxeedii buurahay gashatay way lugeynaysaa way socotaa abiyana wuu ogyahay hubkii ciidanka Itoobiya qayb ka mid ah Amxaara inay gacanta ku hayso wuu ogyahay hubkii ciidamada New Booliska Amxaarada inay jifaana gacanta ku hayso wuu ogyahay si uu dhanaaba Tigreegu inay hubka ugu faraha badan ee Itoobiya gacanta ku hayaan wuu ogyahay ugu dambeeyay ee Itoobiya soo galatay 30 sano ugu dambeeyay wax walba ogyahay waa askari laakiin damaacigiisa ka weyn marka ha socdo كانوا دعيني محوها وكانوا دعيني محوها وكسو كله وايه marka xaaladdu waxay maraysaa wala isfiirsanaya waxa kale iyo national dialogue iyo shirweyne qaran iyo qaranka Itoobiya ay taxagu jooga yaa heshiinaya tusaale ahaan waanu soo qoraya qaybtii warbixintaani wada hadal waxa la yiraahdaa Soomaaliya markii lagu heshiisinay carta ay labada sano fadhiyeen qoys baa loo doonay loo wada fadhiistay 2 sano baa la fadhiyay Soomaaliya saasa lagu soo dhisay dawladda saasa lagu dhisay federaalka oo markaa ku meel gaarahay national dialogue baa la yiraahdaa shirweyne qaran baa lagu soo heshiiyay markii la arkay xaalad say tahay baa la yiri dawlad qabiil ku dhisan 4.5 si loo kala 4 waaweyn iyo inta kale oo hal bah laga dhigay oo xogaa hoos loo dhigay saasay ahayd Itoobiya see la yeelay markii way islaysay Soomaaliya qoys bay ahayd wata heshiisay baladu Itoobiya soo heshiisay waxba isla ma ogola isku qolo maaha isku qoomiyad maaha isku waxba ma moogta حقوشوا اسكام مسيني يسو قرا اسكام انا مسيني يسو قرا هبي الله عذاب وايه marka xaaladdu waxay maraysaa bariga dhexe kama liidata xaalka Itoobiya aad bay u kulushahay hawluhuna way si waxay u socdaan xawriga ku socdaan dagaalkan Tigreega ay soo diyaarinayaan dhaqdhaqaaqa Eritrea ay wado dagaalka gobolka Amxaarada ku jiraan intaasoo dhan waa isbahaysi waxaana la filayaa xitaa oo saadaasha soo baxaysa ay tahay in Mareykanku ay xilligan Eritrea ay heshiis la galeen oo Tigreega iyo Eritrea la heshiisiyay Amxaarada iyo Eritrea Amxaarada iyo Tigreega la heshiisiyay si xoog loo abuuro qoladan meesha haysata loo dhaafiyo haddii kale waxa Itoobiya ilaa ma jirayaan midda kale kuwa xitaa hadday hadda soo bahaystaan cid dhageysanaysa Amxaariga Tigreega isla socda ay sameeyeen iyaga isku dhaxqalan isku baabiin doona Tigreegu wa maslaxadooda yaqaanaan lafa gali iyaga la isku jabiyaa waxa ka soo Mareykanku la yimaado waa okay Axmaara marka hankeeda ah kaligeed inta ay soo tagto inay isku balaadhiso ay qabato oo meel walba qabato oo calankeedii iyo nidaamkeedii ka dhisto waa habeenkii xalay ah oo tagay laakiin ninkan iyo Itoobiyadan magacan hadda wadata iyo waxan iyo federaalkan iyo waxan iyo way la dagi Abiy Ahmed baa dajiyay Amxaaraduna dhagax culus bay dusha ka sii saareen haadaamay ka sii tuurayaan Tigreega marka
إثيوبيا ما بدبادين كرا أو مريكان ما أورا كرا تكرا أو صعو أو بدبادي تكرا أو تقرن سوا حق جاري أنت إثيوبيا ورا هذا ترى كفالو أما كورا وأرين هذه very difficult هالكاس ماليس marka xaaladuhu aad iyo aad bay u kacsan yihiin waan idin la socodsiinaynaa wararka soo kordha dhammaantiin muuqaalka sii share gareeya isbahaysiyadaas waqooyiga Ethiopia colaadda ka soo fool Addis Ababa waa mid culayskeeda leh saad la socotaan Ethiopia oo haddaad aragtaan dad Soomaali ah ama mas'uuliyiin haadaan ama shakhsiyaad kale ay u hadlayaan oo soo wada baxeen dhibaata ka jirta Addis Ababa hadda waxaan arkaynay madaxdii deegaanka kuwa BBC-da ka hadla kuwa meel kale ka hadla oo soo wada baxay waxaan la yaabanahay oo dadku ummadda la yaaban tahay Ethiopia maxaa ka galay iyaga war Ethiopia sootan ummadeena heerkan gaarsiisay ma aha dhibka Ethiopia haysta maxaa idinka galay oromadu may u hadlaan Ethiopia xabashi may u hadasho Tigray may u hadlaan haddaad aragtaan tigtigo oo laga hadlayo oo madaxda maamulka jooga ama kuwa hore ama kuwa hadlaya Addis Ababa culays baa saaran maalmahan urka oo alfa xoga dhaqdhaqaajiyay xagga siyaasadda war saxaafadeedii daba joogay waxba soo baxay marka waxa weeye waa inay jawaabaan kuwa Soomaalidu war adu walaalka oo is hayaan nin shisheeye ah maxaad ugu jawaabaysaa maxaad kaga duwan tahay kuwii ka horeeyay kuwii idinka horeeyay ee 10 ka ahaa maxaad kaga duwan tihiin shaqadiinu mayn ahayn dadkan iyo ummadeena aad maamushaan war in la isu jawaabo Ethiopia iyadoo af mayna lahayn nimanka qoomiyadda ugu badnayd ba haysataan le iyadoo may hadlato af Soomaali xitaa way yaqaanaan waa nasiib darro aad iyo aad u weyn in maanta haddaan af urur ku hadlo ninka ii soo jawaabay uu Soomaali u noqdo ninkaan la hadlayo ma aha nin baa ka sokeeya gumaysiga waddankeena haysayeena qayb ka noqonin yeynaan inagu mas'uul ka noqonin inaan ku hayno gumaysiga burburay ma waddankeena inta maamulka leenahay waxa kale oo jirta odayaashan la leeyahay Addis Ababa loo wadaa taariikhda idin qoraysa masiirka ummadan la rabo god in lagu rido oo lagu qaato waddankan haldaa tagtaan taariikhda idin qoraysa mana hergelayso ha isku lugoynina ninkii Soomaaliya ee meesha la geeyay Addis Ababa ilaa waxa ka qayb galaya shirweyne qaran iyo national dialogue wax la yiraahdo dhagar waxa weeyaan oo ummadiisa ka galaya way waa dhagar weyn tuka cambaar loo noqonaya xataa caruurta uu kun awow u noqon doono yey xitaa yey ka muuqan doontaa oo lagu sunti doonaa marka taasaan leenahay guud ahaan marka xaaladdu aad iyo aad bay u kacsan tahay ishaynu ku haynaynaa wixii soo kordhana waa la soconaynaa maamulka deegaanka Soomaalida anu shakhsiyan hadda shakhsi hadlaya moogta kulmal ma shakhsi hadda waxaan oran lahaa walaalayaalow niman baa idinka horreeyay maanta waad garanaysaan magaca iyo adduunka waxay ku leeyihiin ummadan idinka maartay Ethiopia idin soo wakiilatay meeshan macnaha maamulka inaad u joogtaan dadkiina inaad maartay kaalmaysaan oo garabsataan oo midnimo ka raadisaan oo xoog ka raadisaan bay ahayd waa nasiib darro aad iyo aad u weyn mar walba inaan aragno waxa Addis Ababa qancinaya dadkeenana aan ka farxinayn oo dadkeena aan dan u ahayn ma aha wax adigu ku cusubtiin oo wax soo taxnaaway taana waxa weeye waxaan leenahay wali waxaa jirta rajo ah
inaad xagga dadka aad soo martaan oo dadka rabitaanka dadka inaad maartay qaadataan laba shaqeeya laakiin wax ummadan liddi ku ah uun halaga fogaado ummadan wax iska caabin bay ku jirtaa ummadani iska caabinta yaan laynaga dhexelin dad u kaalmeynaya marka gumaysigii dad u kaalmeynaya waan soo aragnay 30 sano u dambeeyay yaan laynaga dhexelin dad u kaalmeynaya gumaysiga yaan cod loo noqon gumaysiga dadkan way dhibaataysan yihiin way ka dibdhacsan yihiin caalamka dad Afrikaana oo aqoon ahaan naga hooseeya oo maartay aan ka quality ka tayo badanahay in maanta ummadeena lugaha loo qabto oo lagu yiraahdo ana leh meeshan ana adiga ku go'aaminaya masiirkaagi ana adiga amar qaadanaysa ana cashuurta ka qaadaya qarnigan 12aad nama qabato qof walba oo adduunka ku nool wuxuu leeyahay waqti iyo maalmo leeyahay magacana waa ka tagaya waxaan oran lahayn odayaashaas iyo maamulkan iyo inta meelaha socotaba waxa weeyaan ummadii oo dhan baa indhahayda ku haysa waxaan soconaynin ha isku ceebaynina nimankii Ethiopia taladeeda hayay yaa majority-goodu diidan waxaan wada abi marka arrintan intaas kaga baxaya waxaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan shacbigeena gacmaha la isqabsado hal midoobo halisaha jira way badan yihiin hana la diyaar garoobo gacmaha ma horsanayno qoladan daalan ee meesha joogta ee 6 sano ku daashay waxba kama dhageysanayno waraaqihii oo aan la soo saartay ee istaba joogga maalmahan waxtar badan bay yeesheen هذا وصحافات ونصاصرت أو أنا الفكرية يا وحوين تري آد وين نسمع عن شو حبا بجوا وجس قلنكي بهذا قلنكي وشقينية مرة وين صفة فهي لكن وحتر وين يشان ما أنا إرجعك يا رفرها بدل استوسعت بركة حالد وحي بريسا هالكاس سياسة دا بهاش اللي لا فعلها اللي سكوت جوية وفاها مركا وفقيس بس عضا وحان رجينا إن كوجولي سنو إن مارتي هانتنو حرية دينا إن كفاية سنة فرصة طالة تذكر حكونا ليان فير dadkii hadda waxaad arkaysaa kuwa badan oo xataa jabada kamid ahaan jiray waxa koornayaan waxa koornayaan dagaal yaan lagu degdegin walaalayaal dagaal yaan lagu degdegin laakiin dadka majority waxa koornayaan maxaa la sugayaa maanta fursad baa tahay la qaaliya haddaad aragtid nin la yaan la degdegin waa fariin la faafiyay way ana وكلا قادتك تكتيو كوي إلى سو هذي كوي سويتو وضعك جديس شوف روحي إلى سو هذا أبي يسوق قرر ولا له يلا دقدقي يا دقدقي لكن هذا توقف كله فرصة قارقة وين كفى يدي سنة فرصة يعني نسيجن نك هو ودنيوي سهل وقاعد والسلام يا دمانتين وحسوا قرر وضع صعنينا أبي أحمد شركي ودودي odayaasha lagu ururinayay waxaas oo dhan way waa fashil waxaas way u dhamaatay waxba kama soconayaan wada hadal cusub oo aan la fiyo Ethiopia bilaabanay intaasaan iloobay shuruuduhu intii hore way ka adkaanayaan 6 sanadood ba yaa la sugay wada hadal cusub shuruudo cusub ba miiska saaran ها أما فضل ما حفظه أما إثيوبيا كبها أما لصعه أما الدفاع أما هالدفاع كله وأنصار كينا
حالات سيكون سعوته واسكا قرينا ماشي مع أفريقيا جيسك أفريقيا حوق مالوك على بحا سوما أفريقيا عقل كلام شقي سوما تقراقي يوحاس هشيسك تقراقي على فلون لا يهي كان يبقى فلون كي شباب ورمضان لوك على الدري وحا ماشي يا الوحويان كل أورتا باشا اسمه سيجين ما قرتين مالك كايان لقاوين أضو قربس أضو هر صعدة والدفاع يتوبي يان لقاوين هذا مدى لا سعون ويدي هذا مدى أمان سين ويدي هذا قد يدي إسمارة كدين ويدي هذا ما تدبرتين كدين ويدي مالك ستوصل يسوي إثيوبيا أبي أحمد يكون حديثة مالك كايان لقاوين آخرنا ماشي تغان ملتق ولا أديان والسلام يا دمانتين أنا وين بدل ما سوى هذا لي أو الله سبحانه وماذي هو الله سبحانه دشري كون هو بدك أنا هذا شجرة والله هذينا مركا أنت أصلا كسوكو بينا حالة إثيوبيا لما قيمين كرو وبدأ هيركع عسان بدأ وحباب معافية مركا وحول بوا قدية وحول بوا يسلح رقمرية مركا إثيوبيا وحكو ترتا ولا هوغاس وبدأ هيركا كعسان شهام ملأ بد إلهي يوم بعد دجينكره سبحانه وتعالى بنا آدم ورا هذي ستو هيركا بد ما دجينكره مركا إثيوبيا واحد ولا دجينكر واي إرجع مريكا وكو داري عد والبا وكو أنتي نكنا وكو فرع ضيقي وحولي أنو عندنا لما هضيو ما شايو وحو هذه شاينا يبلع عزولة تجي شاينا يو دولتها عاوين ترى إثيوبيا وعل مركا حويا جذب بدن بورصدي رجال بيت جذبتي سنة ما حدو مر هدي كبح كوران ماشي وديدد والحكم كدك حال مريم ما كقاضني تكراي بان ماشي كقاضني حل بان هادينينا adoo xalka qayb kama tiid kursiga ka deg meeshaan badbaadinayna wuu diiday inyo kursiga lagama fujinayo kama degayo baba qoomiyada ugu badan ma ka dhashay carwakaasi haye lacagihii baa laga xidhay albaabadii baa laga xidhay siyaasadii baa laga qufulay deyn baa loo diiday hirig bay isku jirtaa marka meel uu dhaqaajiyo laayahay ruush lacag ma bixiyo China deyn way wax kala ma bixiyo deyntina waa ka badatay haye nimanka Carabiga wixii la shaxaad jiray Carabiga Mareykan baa waxa ku leeyahay waxa ma bixin kartaa ninkan waxaan rabaa inuu soo dhiibo marka halkaas ay socotaa wal islaamiya dhamaantiin niyada khayr u sheega qadiyadeenu meel fiican bay maraysaa oo NLF meel adag bay taagan tahay waraaqihii war saxaafadeeda ka soo baxay Ethiopia si dhab ay u taabteen waan idin sheegi si dhab ah iyo u taabteen nimanka waliba oo xukunka hayad qoomiyada xukunka haysa si dhab ay u qaadatay agteeda ku dhufaalay baasha haday garan weydo iyada lafteeda taabsi marka baashi iyadii baa dhab lagu sii hadda bay leeyeen waliyo khalad baa galay wixii baa haro halkaas ay marayaan waan sugaynaa oo NLF ururka gobolnimada Soomaaliyeed jooxo waa power jira way geeska Afrika shacbiyadeeda wada aragteen August sanad guuladii wada aragteen Soomaaliya ma kala hadin waxa kaaga daran inta wiil naftooda la taagan maalkooda la taagan sanadadii hore hadday ka shacbiyad badan tahay ururku maanta la joogo oo NLF way ka shacbiyad badan tahay 2018 today maanta 3 October 2024 oo NLF waa maalinkii ugu shacbiyad badan tahay wi waa maalinkii ugu dhaqaale badan tahay waa maalinkii ugu saaxiibo badan tahay maanta dawladda badan baa dareynaya qadiyadan saaxiib la ah 2018 aan la ahayn yaa maanta dareynaya qadiyadan dadweyne aad u fara badan oo malaayiin gaaraya qadiyadan taageeray sanadkan قول برهتيننا يقبلني والإسلام يا برنامج كرسي شرقرية وركينا والله سبحانه وتعالى هدي لهيلا قول إن شاء الله سلام